magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga daafuray tartan kubadda cagta oo lagu maamuusayo bisha barakeysan ee Ramadaan. Tartankan ayaa waxaa lagu daafuray kooxaha filtray ee Ilays waxaana ka qayb galaya 20 kooxood oo ka kala socda xaafadaha magaalada Beledweyne. Gudoomiyaha guddiga soo qaban qaabay tartankan Cabdikariin Xasan Cabdulla Qalaad ayaa ka waramaya ahmiyadda tartankan isagoo u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaatay tartankan. koobkan waxaa ka qayb galaya 20 kooxood oo ka tirsan degmada Beledweyne iyo nawaaxigiisa. runtiina macnaha koobkan waxaa kaalin mug leh ka qaatay jaalidaha gobolka Hiiraan Amerika iyo Yurub iyo Afrika isku jiraan. runtiina macnaha waxaa koobkan muhiimadiisa isdhexgalka bulshada iyo Ramadaanka koobkii loogu talagalahay. koobkan socod doona sanad walbana aan qaban doono si ay isku dhexgalaan macnaha isha dhalinyaradeena iyo macnaha iyo odayaasheena aan wada baashaalno. koobkanna waa koob socod doona macnaha hadda wixii ka dambeeyo. koobkanna macnaha isha wax dad badan ayaa ka qayb qaatay sida macnaha saaxiibkay raaxay oo kamid ah dadka ka qayb qaatay. saasaytaana waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo haddana ka qayb qaadanaysa dowladda Hiiraan. qaar ka mid ah ciyaartooydii hore ee gobolka Hiiraan oo ka hadlay furitaanka tartankan ayaa bogaadiyay iyagoo hadallo dardaarana u jeediyay kooxaha ka qayb galaya. markastoo bil Ramadaan la gaarana koob saas ayaa loo dhigaa hadee kulli ninkuu Ilaahay ugu talagalaana qaada. annagana waxay noo tahay maadaama hobby sports aan wadan annagana waxay noo tahay dhiirigelin bay noo tahay waana ku dhiirigelinaynaa ilmaha dheelayo dhalinyarta dheelayso. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay guul ay noogu dhamaato. tan kooxood oo ka tirsan naadiyada Serie A gobolka waxaana ka qayb galaa oo koobkan ka qayb galay 20 kooxood. sidaa daraadeed waxaan rabnaa marka legendintii hore oo kubadda cagta ee gobolka oo joogo iyo rag fara badan oo ciyaarta gobolka kamid ayaa koobkan dhiirigeliyay tartankan suurtageliyay. waxaan kula dardaarmaa marka intii hore macalinka noo dhameeyay kooxaha dhalinyarada ah ee sportiga dheela. koobkan waa koob isdhexgal bulsho ah. waxaa la rabaa marka in la sameeyo aadaab la muujiyo, akhlaaq la muujiyo, laga dambeeyo garsoorayaasha. garsooruhu ma aha wax yani bini aadam waaye, ma aha qof oo makiinad ah. wax uu garsoorka arkaa uu dhigi karaa wixii asaga u gooniya oo garsoorku arkana inaan ninka dhayada ay dheelaya bani waysa cadifad qaadin. ninka walaalkiisuna soo waxba gaarsiin inuu koobka ku bilowdo si sharafna uu ku dhamaado. dhalinyarada waxaan ku waanaa marka inay had iyo jeer waa ku soo celinaa dhalinyarada banooniga dheelayso befagoore ka dambeeya garsoorka iyo guddiga koobka wado. ninkii wax qabo guddiga ayuu u soo bandhigi karaa wixii uu qabo iyadoo qoraal ah waana laga shaafinaa. laakiin waxaan u sheegaynaa inay ilaaliyaan aadaabta garoonka aadaabka isboortiga. garsooraha is waxba gaarsiin ayaga dhexdooda waxba is gaarsiin. garsoorku wuxuu isaga arko isaga u jeedo uu dhigi karaa mogi wax kale lama dhigayo insha Allah bidnaa kariim. tartamada noocan oo kale oo sanad kasta lagu qabta magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa kaalin ka qaadanaya isdhexgalka dhalinyarada. Maxamed Cabdi Sanay, Radio Beerlula, Beledweyne.